بسم الله الرحمن الرحيم دعوة كسودو برنامج كاني إن برنامج ده إنه شو قد بنجرتي طاها إنسبايرس ما أنت برنامج كانوا حنو هل دونا إسكوفيلنا شو رجالة إسكوفيلنا شو رجالة مركو هاي وحنكو بلاوينا جهتان كيسة إسكوفيلنا شو رجالة وحلو جها قفكا أو محنكو إذا هذا كنا ولا نكرنا ولا شو ربو أسيقو أنا شقين تاسو معني هذا يتهاي qofkaas dhaqaalaha uu haysto iyo hantida uu haysto iyo raasmaalka uu haysto ba waxay u soo saarayaan lacag asiga uu ku filnaan karo nolosha uu raban uu ku noolaan karo marka maanta dhowr qodob ayaa arrintaas ka sheegaynaa isku filnaanshaha dhaqaale marka koowaad intaanan u gudagelin mawduuca waxaan rabaa dhowr qodob inaan sheego qodobka koowaad waxa way xorriyadeeni si rasmi ah waxay u bilaabanaysaa qofka markuu gaaro isku filnaansho dhaqaale markuu gaaro ayaa wuxuu gaarayaa xorriyadiisa dhameystiran qof aan maadiyan isku filnayn xorriyadiisa dhameystiran ma haysto waxay yiraahdaan carabta man laa yamliku quutahu laa yamliku qaraarahu qofkaanan awoodin quudkiisa qaraarkiisa asiga ma awoodo saas ay yiraahdaan carabtu nabigeenin xariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee waxaa ka soo arooray xadiis qaybtiisa hore uu ku leeyahay almu'minu alqawiyyu khayrun wa ahabbu ila Allah min almu'min ad-da'if mu'minka xooga leh wuxuu ka khayr badan yahay mu'minka aan xooga lahayn labadoodaba khayr bay leeyihiin wa fi kulli khayr marka yani dhaqaalo wuxuu ka mid yahay waxyaabaha aadanaha awood u yeelo haddaadan dhaqaalo haysan micnaheedu waxay tahay awood dhameystiran ma lihid marka waxaan u baahanahay inaan gaarno bulsho xoog badan dhaqaalahaan u xoog badan dhinac kasta u xoog badan inaan si aan u gaarno waxaan u baahanahay in shakhsi kasta oo bulshada ka mid ah uu leeyahay yani wax soo saar dhaqaale uu ku fikirayo ama uu dadaal u bixinayo sidoo uu gaari lahaa isku filnaansho dhaqaale marka dhowr qodob baan rabaa inaan idin la wadaago oo qofka uu ku gaari karo isku filnaansho dhaqaale uu ku gaari karo kow waxaa ka mid ah qofka inuu maxaan ku yiraahdaa uu leeyahay maalgashi in qofka wax maalgashi samaysto ganacsi ha ahaato meel kale ahaato uu leeyahay qof maalgashi samaysto uu ahaada dunida dadka lacagta leh maxaan ku yiraahdaa boqolkiiba 50 waa dadka ganacsiga leh boqolkiiba 50 ka mid ah dadkaas dunida ee lacagta leh waa dadka ganacsiga leh oo ganacsatada ah dadka ku xiga ugu lacag badan maxaan ku yiraahdaa waa dadka maalgashiga ku samaysto stockiska waxaan ay dhahaan ama shareholderska ama shirkadaha saamileyda saamiga maalgashta ayaa sidoo kale boqolkiiba 20 ah boqolkiiba 15 ku xigto waxa waaye dadka dhulka maalgashta waaye boqolkiiba 15 ku xigtan waxa waaye dadka ka shaqeeya shaqooyinka mushaaraadkooda aad u sareeyo ba waxay ayagana sameynayaan boqolkiiba 15 ka mid ah lacagleyda dunida marka si aad u gaarto levelkan dambe ama shaqo oo lacagteeda aad u badan tahay aad u hesho waxay kaaga baahan tahay waqti badan khibrad badan iyo waxyaabo badan ay kaaga baahan tahay gaar ahaan marka aad ku nooshahay wadamada aan ka soo jeedno ee cadaaladeedu ay yar tahay way adag tahay qofka inuu maxaan ku yiraahdaa shaqo lacagteedu sareyso uu gaaro marka qodobkaas koowaad halkaas aan ugu gudbaya qofku waa inuu lahaada maalgashi uu maalgashi sameystaa qodobka xiga waxa way oo muhiimka asigana sidoo kale to qofka inuu isku filnaansho dhaqaale gaaro u sahlayo waxa kamid ah markasta inaad ku fikirto inaad lahaato kayd degdeg ah ama emergency saving wax la yiraahdo emergency saving ama kaydka degdeg ah waxa laga wadaa qofka lacagta bil ahaan bishii lacagta soo gasho lacag u dhiganto oo 6 lagu dhuftay ama 6 bilood ama 12 bilood tusaale ahaan lacag $400 ayaa bil ahaan bishii mishaar ahaan u qaadataa emergency saving kaadu waa inuu la ekaada 6 lagu dhuftay 400 oo taas oo sameynayso $2,400 haddii sanad tahayna sanad uu ku yahayna sidoo kale sanad u samaysataa marka waxaan u baahanahay qof kasta naga mid ah oo shaqeeyo inuu leeyahay isku filnaansho si uu u gaaro isku filnaansho dhaqaale waa inuu lahaada waxaas la dhaho kaydka degdega ah oo qaabku uu ku gaari karan aan soo sheegnay uu ku fikiro qaabkaas qodobka xiga ee saddexaad oo ku sahli karo in isku filnaansho dhaqaale aad gaarto waxa kamid ah in yani aad yareyso waxyaabaha aadan baahi daran u qabin soo iibsashadooda yani dad badan waxa jira waxa laga yaabaa inuu 3 shaati 4 shaati 10 shaati u haysto haddana mar labaad yani shaar uu soo gato yani ama alaab kaleeto shoppingkiisa ama soo iibsiga inuu yareeyo taasna idan waxay kamid tahay waxyaabaha qofku u sahli karo inuu gaaro isku filnaansho dhaqaale ugu dambeystii
lacagaha ama xoolaha aan la macaamilno waxay isugu jiraan 4 nooc ay isugu jiraan. nooca koowaad waxa way lacagta ku soo gasho waaye oo afka qalaad lagu yiraahdo income. nooca labaad waxa way lacagta ka baxdo waaye. nooca saddexaad waa raasumaalkaadi aad haysato haday lacag tahay, haday hanti kale ay tahay, hanti ma guurta ay tahay, hadii kale. nooca afraad ee ugu dambeeyna waxa way waa deemaha lagu leeyahay. marka si aad isku filnaansho dhaqaale u gaarto waxaa loo baahan yahay inaad kordhiso laba qaybood oo lacagaha la macaamilaysa kamid ah oo kala ah lacagta ku soo gasho iyo raasumaalka aad leedahay. markasta aad kordhiso lacagta ku soo gasho aad kordhiso micnaheedu waxa way waxaad kordhinaysaa yani isku filnaanshaha dhaqaalaha kordhayo. qodobka xiga assetska ama lacagaha aad leedahay ee raasumaalka aad leedahayna sidoo kale waa inaad kordhisaa. labadaas markaad kordhiso markasta aad labadaas qodob aad kordhiso micnaheedu waxay la micno tahay isku filnaansho dhaqaale fiican ayaad gaaraysaa. labada ugu dambayso ay hadii ay kugu bataan ay yaraan karto isku filnaanshaha dhaqaale ama dhibaatooyinka dhaqaale inay kordhaan sababi kartaan waxa kamid ah waxa way lacagta ka baxdo hadii kordho iyo lacagaha deemaha lagu leeyahay hadii kordhaan sidoo kale waxay ku jiidayaan maxaan ku yiraahdaa isku filnaansho dhaqaale inaadan gaarin. daawade maanta barnaamijkan halkaas aan ku soo koobaynaa. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.